السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت دمت الى من حريست انت حنوسن الى عافية. انت مراد الى امورها سهلو. تاريخ ما انت ku beegan tahay 19 bishii 1440 ku beegan 6 bishii shanaad 2026 war naga soo gaaray ayaa sheegaya dagaalka Iran wuxuu cadaadis weyn saaray awoodda military ee Mareykanka. intii uu socday dagaalka Mareykanka wuxuu isticmaalay lacag taqriiban ku beegan 25 milyan oo kumanaan gantaalo si uu u weeraro bartilmaameed iyo inuu si difaaco weeraro. Tani waxay keentay in keedka hubka half ka mid ah la isticmaalo ee adag tahay in magaranaysa la soo buuxiyo. sida hubka la isticmaalo waxaa ka mid ah Patriot, Tihad iyo Tomahawk si degdeg ah u yaraadeen. xitaa waxaa la sheegayaa in kala bar keedka qaar la isticmaalay. dhibaatada ugu weyn ma waxay kala isticmaalka hubka ma aha balse waa hubka keedka in dib loo buuxiyo keedka oo qaadan karta waqti ku dhow 5 sano. warshadaha hubka soo saara si degdeg ah uma kordhin karaan soo saarka hubka, gaar ahaan Kongareeska muu ansixin miisaaniyadda hubka. arrintan waxay saameyn ku yeelan kartaa xulafada Mareykanka sida dalalka qaar ayaa hub dalbadeen. dalal qaar sida Asia iyo Europe ayay dhibaato ku noqon kartaa. sida Europe iyo Asia dib u dhac ku yimaado helitaanka hubka iyo waxay dalbadeen. qaar ka mid ah khubarada waxay ka digayaan in xaaladahani ay daciifin karto awoodda Mareykanka ee ku jawaabista quwadaha waaweyn sida Ruushka iyo Shiinaha. qatar kalsooni si degdeg loogu qabo kalsoonidii loogu qabo Mareykanka ayaa hub daciifi doonta. si kastaba ha ahaatee aqalka cad wuxuu sheegayaa in Mareykanka weli haysto hub iyo awood ku filan si loo difaaco si loo fuliyo howlgalka military. waxaan walaalo qodobka inaan ugu soo gabagabeeyo insha Allah wixii qodob kale ku saabsanna waa inuu warkeena kale. Assalaamu calaykum waraxmatullaah.